بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هو الأستاذ الدكتور زغلول دكتور زغلول النجار waxa uu ku dhashay magaalada Masar 1930kii تخرج في كلية waxa uu culumta natural science ka qaatay martabada sharaf waxa uu ka soo shaqeeyay jaamacadka Ayn Shamsi iyo Riyadh iyo jaamacadda Greece ku taal ee Wales waxa uu ka tirsan yahay reference ugu waaweyn ee adduunka culumtaasi dhulka iyo koonkaba laga la xidhiidho waxa uu inta badan uu sameeyay innovations ama wax soo saar far badan oo ku soo kordhiyay aqoonta uu takhasuska ku leeyahay adeegsanaya waa dadka ijaaz cilmi fil qur'aan maadooyinka la yiraahdo ugu horeeya waqtigan aanu joogno qaahira ayuu degan yahay waxa uu imika wadaaci ka yahay hay'adda ijaaz cilmi fil qur'aan ee ku taala magaalada qaahira marka tafsiirka quraanka kariimka ayaa uu soo qaadaya qaybaha ijaazka ugu yaraan waxaan ka diyaariyay 25 xalqadood 25 xalqadoodna waxaan doonayaa markaas inaan ku soo koobo ilaa haddii aan la yiraahdo 15 Ramadaan laga bilaabo bishan imika aynu ku jirno ee March 25keeda ayuu bilaabmaya ku soo dhawow Dr. Zaghlul An-Najjar salaan kadib waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan ku weydiiyo macnaha ay leedahay ijaaz al-cilmi fi al-Qur'an. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.